بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ku guda jirnay fasalkii mucrabaadka waxa uu sheekhu inoo tilmaamay raxmatullaahi calayhi in mucrabaadka loo qaybinayo laba qaybood qayb calaamadooda icraabku ay noqonayso xarako iyo qayb calaamadooda icraabku ay noqonayso xaraf waxaynu soo qaadanay qaybta koowaad oo ah qaybta ay xarako noqonayso calaamadooda icraabku afar noocna inay yihiin buu inoo tilmaamay waxaa kaloo inoo tilmaamay qawaacid guud oo ku saabsan waxaynu ku guda jirnay markaas aynu bilaabeynay qaybta xuruufta la icraabayo marka waxa uhi musanifku raximahullah waladii yucrabu ka la icraabayo calaamadiisu ay noqonayso bilxuruufi xuruuftii arbacatu anwaacin noocyo afara weeye almuhanaa muhanii weeye wamaa xumila calayhi muhanaa iyo wixii muhanaha lagu xambaaray wajamcu lmudakari saalimu jamci mudakari saalim weeye wamaa xumila calayhi iyo wixii lagu xambaaray walasmaa asmaadi weeye asmaadii asitatu lixda ahayd walamhilatu tusaalayaashii weeye tusaalayaashii alkhamsatu shanta ahaa waay sheekhu raxmatullaahi caleyh wuxuu tilmaamay afartan nooc ee anwaacdii mucrabaadka ka mida waa muhanaha iyo jamca mudakru saalim iyo asmaa sitaha iyo alamhila alkhamsa intoodaba in calaamadda icraabku ay tahay xaraf xaraf wuxuu ka wadaa calaamadahooga waxaanay ka dhex bixin xuruuftii wawda iyo aliftii iyo nuuntii iyo ya-dii iyo xadafka oo la raacinayo qismiga xuruufta la raacinayo kuwaasaanay ka dhex bixin buu leeyahy calaamadooda hadday rafcisan yihiinna kuwaasunbay ku dhex jirtaa hadduu nasbisan yihinna saas oo kale hadday khafdisan yihin haddii jasmisan yihin mid buu markaa u tilmaamayaa wuxuu ihi fa ama almuhana muhanihi miya fayurfacu waxaa lagu rafciyaa bilalifi aliftii baa lagu rafciyaa oo wayunsabu waxaa lagu nasbiyaa oo wayujaru lagu jaraa bilyaai ya-dii ya-dii almaftuuxi la fadxiyey maa qablahaa waxa ka horeeya xarafka ka horeeya almaksuuri la kasriyey maa bacdahaa xarafka ka dambeeya wa ulxiqa bihi waxa la haleeshiyey waaye halkan sheekhu raxmatullaahi calayhi waxa uu tilmaamay muhanaha almuhana waxay inoo soo hormartay tacriifkiisa inoo soo hormaray muxuu ahaa muhanuhu tacriifkiisa markii la eegayo haye ma jumica waa muhana hadda jamc ma waa muhane صح ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده واي مثنو كاسوها أو أي نصهر مري تعريف كيسو هذا باسم كستا ومثنى ولا دوني اسمي مركينو دوني إن المثنى كدقنا شروط بالله دقا شروط أيا الله دقا اسمي مركي لدوني محي إن لقد دقو مثنى ismi mufrido kasta muhane ma noqdo asmaada qaarkood ayaan noqonin saa laajigeed shuruud buu leeyahy shuruudda waxaa ugu horeysa shaygan muhanaha laga dhigayaa an yakuuna mufradan marka koowaad horta an yakuuna mufradan waa inuu mufrad ahaado laba waa an yakuuna mucraban mucrab waa inuu ahaado shuruudda muhanaha waa inuu mucrab ahaado shaygan la qoraya hadda la socdo waa la isweydiin doonaa shuruuddaas shardiga koowaad maxaan ku sheegay an yakuuna mufradan shardiga labaadna an yakuuna mucraban waa inuu mucrab ahaado shardiga saddexaad an yakuuna munakaran waa inuu nakiro ahaado an yakuuna munakaran yakuuna munakaran waa shardiga imsaal saddexaad soo maaha waay anlaa yakuuna murakaban anlaa yakuuna murakaban waa inaanu murakab noqon anlaa yakuuna murakaban an yakuuna lahu waa shardiga imsaad shanaad ba an yakuuna lahu kalimatun موافقة
في اللفظ والمعنى أن يكون له كلمة موافقة في اللفظ والمعنى. وشرطه ugu dambeeya waa lixaad soo ma alla yughna anhu ghayruh alla yughna anhu ghayruh way shuruudan hadaba aynu eegno shardiga koowaad waxaan niri shayga aynu doonayno muthanna inay ka dhignaa horta waa inuu ahaado an yakuna mufradan mufrad waa inuu ahaado kelmadan mufrad ahayn baa lagu muthanna ka dhig doorta marka hore mufradkii ku celi soo waadix ma waa inay mufrad ahaato shaygan muthanna aynu ka dhigeen shardiga labaad waa in uu mu'rab ahaado maxaa meesha ku baxaya mabnigi ashyaada mabniga lama tathniyay xaynoo iman doono in ishaari doona ismu ishaaraha markaynu marayno ismu ishaaraha hadduu qofku shakhsi kaliya yahay mudakar maxaa lagu ishaaraa hada sooma gabadhiina haadihi labadii maxaa la odhanaya haadaani sooma maana muthanna ahayn insha allah ismu ishaaraha markaynu marayno ayaynu eegaynaa ilaan asmaa'ul ishaara waxa weeyaan mabnigay ka mid ahaayeen sooma mabnigay ka mid ahaayeen sababta loo yidhi haadaani loo yidhi isagoo shaygaasi mabniya oo inuu insha allah u iman doona asmaa'ul ishaaraha markaynu marayno laakiin asalku waa maxay inuu yahay mu'rab inuu yahay maxay mu'rab shayga laga dhigayo muthanna laga dhigayo way saddex waa inuu ahaado munakkar mid la nakira laga dhigay waa inuu ahaado asaalatan buu nakira ahaado tusaale ahaan sida rajul oo kale ama may asaalatan ma ahee hadda la niyoonaya inuu nakira yahay hadda la niyoonaya maxay inuu nakira yahay halkaa aan yar tawdiixiyo shardi waxa uu ah ismiga muthannaha waxa shardi u ah inuu yahay nakira nari sooma waxa jira haddaba nakiradii inuu asaalatan nakira yahay imika tusaalaha rajulun ma nakira mise waa macrifo horta nakira iyo macrifo ma la kala garanaya kitaabkii hore inagu soo martee ya nakiradu maxay ahay ismu shaa'icun fi jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara waa ismi kasta oo jinsigiisa oo dhan ku dhex faafaya cidina aanay goonin lahayn waa ismi ku tusinaya cidaan mucayan ahayn haddayn si kala u dhigno waa ismi ku tusinaya maxay cidaan cayinayn de oon mucayan ahayn waayo macrifaduna cagsiga kaasi ahayd sooma waa ismi ku tusinaya cid cayina ama calam ha ahaado ama ahaado ismu ishaari ha ahaado ama asmaadii mawsuul ha ahaado ama damaa'irtii ha ahaadaan macrifadii oo dhan soo waadix ma waayo haddaba waa inuu ismigani yahay ismi nakira ismigan ay muthannaha ka dhigayna tusaale rajul imika markaynu soo qaadano shuruuddeenu waafaqaya ko waa mufrad waana mu'rab waana maxay nakiro sid caadiyan uga dhigayna markaa muthanne maxaynu odhanaynaa alif iyo ithneen alif iyo nuunun ku kordhiya ama ya iyo nuun rajulaani ama rajulayni un baynu odhanay asal ahaan bay kelmadani ahayd maxay nakiro ashyaa haddaba waxaa jira asal ahaan aan nakiro ahayn laakiin marka aad muthanne ka dhigayso aad niyoonayso inay nakiro yihiin waa asmaada calamka ah ee ashkhaastu ay leeyihiin nakiro waa laga waxaan ujeedaa muthanne waa laga dhigaa iyagoo macrifo ahaa laakiin xaaladda laga dhigayaa waxaa la niyoonayaa inuu nakiro yahay tusaaleynu soo qaadanaa bal tusaalaha lagu fahmaa zaydun ma ismi nakira waa mise waa ismi macrifa ya waa macrifo liannahu waa maxay calam iyo magac uu gooni u leeyahay shakhsi soo saama ma laga dhigi karaa muthanne ya hadday shardigii eegnada uu inaga hor imanayaa soo saama ilaan waa macrife shardigeena muxuu ahaa nakire inuu yahay sooma haddayn shardigii eegna uu inaga hor imanayaa waxay yidhaahdeen waxaan samaynaynaa si aanu shardigii aanu u jabin waxay niyoonnaa zaydkan inuu nakiro yahay oo la wada wadaagay imika tusaale waayo imika laba ninoo dee laba zayd la kala idhaaha doonaynaa inaan magacii u bixinno sooma magacii markaa maxay niyoonaynaa inuu magac mushtaraga noqday
oo imika yaa wadaagayba labada nin aan doonayay inaan u kala bixiyo kana zayd baa la dhahaa kana zayd baa la dhahaa marka waxaan niyoonayaa inaan magacan shakhsi gooni u lahayn oo mushtarak noqdo oo nakira noqdo oo nakira noqday biniyatin nakira ayaan ku tathniyeynaya marka waa inama al-a'malu binniyati la soco xadiidka xataa naxwi buu gelayaa ya halka ma fahanteen culimo marka asmaada la mu'rabka ee mabniyana waxaan jeedaa macrifada ah asmaada macrifada ah sida zayd muhammad ali ee la tathniyeeyo ee muthanna laga dhigo intaan muthanna laga dhigin ba maxaa la niyooday inay maxay yihiin nakiro marka nakiranimadaas uu shardiga ku waafaqayo saasuu marka ku noqday niyadaas uu ku waafaqay shardiga halka ma fahanteen culimo waay shardiga ku xiga muxuu ahaa alla yakuna murakkaban wa inaanu noqonin murakkab wa inaanu noqon maxay murakkab kalimaadku waa laba mufrad iyo murakkab mufradku waa ma yultafadu bihi marratun waahida waa waxa lagu dhawaaqo hal mar ama marratan waahida hal mar waa waxa lagu dhawaaqo waa waxa hal mar lagu dhawaaqo shayga hal mar lagu dhawaaqay mufrad baa la dhahaa tusaale imika markaan zaydun ila hal mar baa ku dhawaaqay sooma murakkabna waa wixii laba kelmadood iyo wax ka badan ka kooban laba jeer iyo wax ka badan lagu dhawaaqayo salaad hadaan idhaha maalan tusaale ahaan shaaba qarnaha waa kelmad waa laba kelmadood laba jeer ku kala dhawaaqay sooma laakiin islaam baa magaceeda la oran jiray islaam baa magaceeda la oran jiray geesiheeda shaaba qarnaha hadii la macneeyo waxa weeyaan geesihay ka ciraysatay weeyaan ya talo geesaha madax waalkii sheekh waalkii labadana soo labadan labada ma muuqdaan malaha labadan kali ya waay imika waxa loo bixin karaa dadka la salaxiyada dheer yeeshay sama waay shaaba qarnaha laba kelmadood bay kala ahaayeen kelmadani markii dambe magac qof looga dhigay laakiin laba kelmadood bay kala ahaayeen shaaba iyo maxay qarnaha labada kelmadood bay kala ahaayeen kadibna murakkab baa la iskaga dhigay waxa kula mid ah xadara mawt buu ahaa markaasa labadiiba inta la isku keenay magaalo magaceed laga dhigay soo waadix ma waayahay waxaan oo dhan hadaba isku waa murakkab ismigan inuu ka dhigayno hadaba muthannu waa inaan noocaas oo kala ahayn murakkabka ah shaaba qarnaha muthanna kama dhigi kartid soo waadix ma leena huwa maxay ismi mufrad ma huwa ismi murakkab mufrad imika halkan maxaan ka wadnaa waa murakkabka waxa ka soo horjeeday hal mar lagu dhawaaqo marka waa inaanu murakkab ka noqon shardigana ma la fahmin shardiga ku xiga waxa weeye waa inuu xaasilo ismigan ay yakuna lahu ay yahsul lahu waa inuu xaasilo oo loo helo kelmad kale oo muwaafiq ku lafdiga iyo macnahaba halkan la soco wuxuu leeyahay shardigani war kelmadan aad musannaha ka dhigayso waa inay jirto kelmad labaad oo ugu musannayn karto oo xagga lafdiga iyo macnahaba ay iskaga mid yihiin tusaalaha مثلا markaan nidhaahno rajulun waa kelmad Soomaa kelmadaas maxay tusinaysaa nin bay tusinaysaa muthanna ka dhig baa lagu yiri kelmad labaad oo rajul waa inaynu heli kelmadda kelmad lamida waa inaynu helayno oo lafdigana iskaga mid yihiin rajul mise xaraf ka koobantay saddex xaraf Soomaa saddexda xaraf laftirkooda mid ka kooban oo tusinaysa macnaha ay kelmadani tusinayso rajul maxay tusinaysaa nin Sooma tusinayso dee nin labaad kelmad rajul isna ma oranaya labadii rajul baan isku qabanaya maxaan ka dhigayaa rajulani baan ka dhigayaa rajulani maxay ka kala timi rajul iyo rajul bay ka kala timi rajul ya rajul oo labada nin baan ima ka oranaya rajulani dee kana waa rajul labada kelmadood mid kasta ku idlaaqay inuu bixiyay mid kasta lafdigiisa iyo macnihiisu waa isku macnay Sooma kana rajul waa la yiraahdaa oo nin buu tusinay kana rajul baa la yiraahdaa nin buu tusinay soo waadix ma waa isku lafdi waana isku macno waadix soo halka lagu fahmin culimo marka waa inay labada kelmadood isku lafdi iyo isku macno yihiin waxa la diidayaa in aad laba kelmadood
oon isku macnana ahayn isku lafdina ahayn aad ka dhigto muthanne aad ka dhigto maxay muthanne oo tusaalaan waxa loo yaqaano calamul qalabaha meesha lagu saaray calamul qalaba waa maxay laba nin baa laba magac la kala ilaaha mid baad magaciisi qaalib yeeshay awoodda iyo powerka aad siisay markaasaad magacii ninkan ilaha labadiiba ku wada bixis مثلا أبو بكر يا عمر محل ورنجري يا عمران صوما تم مثنى معها صوت ألف ينون وقدام بيسة عمر كون ألف ينون وقدام ما يا لبا عمر لما تلمامي أبو بكر يوحل كلا تلمامي يا محي عمر ولمن أبو بكر لسه كوني يدي شو سامع أبو بكر ما قعبوها مسكوني ورث ما قعيش محوها يا شيء هاي ما قعبوها هاي حاتري عبد الله واي marka hadaba markaynu eegayno labadoodan labada magac lama kala yiraahdo laba Umar maaha macnaheedu laba magac ma laakiin Umar magaciisa baa la qaalib yeelo waxa loo bixiyay Abu Bakar labadoodii baa la isku yiri Umarani la isku waadix sooma la labadan laakiin muthanna maaha waa calamul qalaba wax la yiraahdo inoo iman doona waxa kula mid ah dayaxa iyo cadceeda magac baa la isku dhaha waxa la isku dhaha qamarani baa la isku dhaha keebaa la qaalib yeelay qamarkii baa la qaalib yeelay sooma laakiin muthanna ma aha ee waa calamul qalaba waayo laba qamar ma jiraan ma la helayaa laba qamar ma jiraan di laba cadceedoodna ma jiraan cadceedina waa mid dayaxina waa maxay mid weeyaan marka shaygan aad ka dhigayso muthanne waa shay kale oo la mid ah la helayo macnaha iyo lafdiga ku waafaqsan waay shardiga ugu dambeeya waa inaan laga kaaftoomin kelmadan in muthanne laga dhigo lam yughni anhu ghayruhu qayrkii waa inaan laga kaaftoomin kelmadan hadii in mufrad bay leedahay laakiin muthanne uma baahnabo kelmad kale waxa jirta muthannaha tusisa kelmad kale muthannaha tusisa ayaa jirta yadana lama tathniyay yadana lama tathniyay way tusaale waxaan tusaale u soo qaadanaynaa مثلا كلا iyo khilta waynu arki doonaayo waa mulhaqaadka muthanna waa maxay mulhaqaadka muthanna rasmiya ma maxay muthanna rasmiya u noqon waayeen waxay u noqon waayeen waxaanay haysanin afwankaasi waxay tusaale u ahayd shardigii hore kila iyo khilta maxay tusaale u ahayd shardigii hore ayay tusaale u ahayd aan ku soo noqonno kanimada waa inaan laga kaaftoomin غيرkii bay niri sooma waa inaan غيرkii laga kaaftoomin waxa jira alfaad arabiyada kamid ah alfaadaha arabiyada kamid ah oo inta mufrad ahaan loo keeno muthanne halkii laga dhigi lahaa mufradkan muthanne laga dhigi lahaa kelmad la keenay oo muthannaha tusinaysa oo aan laakiin la lafdi iyo la macna ahayn tii mufradka laga dhigay tii mufradka laga dhigay marka tusaalayaasheedu waa iska koobnaayeen taas waay tusaalaheedii hadda ma xasuusto weyn insha Allah darsiga dambeeyay ku sheeg tusaalayaasheed taas badar waxa xasuusta tusaale واي تاس وامد شروطها من كمل فهم علمه شروطها هذا بقى بيبقى لقو صور الرياء قبل جنا كو فضيدين يا شروط داس شرط المثنى أن يكون معربا وشطر جيكوات شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا ومفردا منكرا ما ركبا وهل بيدين تاس واي ميدين قرية واي موافقا في اللفظ والمعنى له موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره مماثلا لم يغني عنه غيره ولا بدأ بيت كعليا شرط المثنى أن يكون معربا شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا ومفردا منكرا ما ركبا
موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره واضح متى علم يا انت وصل ما هي شروط دي halkaas ku wada sheegay marka waayahay shuruudaas oo lama fahmin culimada shuruuda wixii laga helo ayaa waxa la oranayaa mutanna la oranaya wixii laga waayana mutanna ma noqonay wuxuu yiri sheekh rahmatullahi alayhi waxa mutannaha xukunkiisu waa in la i'raabo alif markuu rafcisan yahay hay markuu nasbisan yahay markuu jaray yahayna ya baa la i'raabay ya-dii sumad buu u sameeyay waayo inagii nidhi jamaca mudakar saalim bay nooga yara eekaanaysa muxuu ka dhigay marka ya-dan waxa fatxisan xarafka ka horeeya waxaana kasrisan xarafka ka dambeeya tusaale muslimayni markayna dhaahno ya-da waxa ka horeeya muslimayni waxa ka horeeya ya muslimayni ya-da maxaa ka horeeya daayib ya mim ma kama horeysa mim ba ka horeeya waayahay mim ba ka horeeya mimkaasi muu fatxisan yahay soo kasrisan yahay uu fatxisan yahay maxaana ka dambeeya nuun baa ka dambeeya ya-da soomaha sina uu kasrisan yahay wuxuu meesha ku saaraya jamci mudakar saalim waa cagsiga ya-da xarafka ka horeeya uu fatxisan yahay uu kasrisan yahay xarafka ka dambeeyana uu fatxisan yahay sida muslimiina sawaadix ma intaasna halkaas uu ku sheegay wuxuu yiri sheekhu waa ulxiqa bihi waxa la haleeshiyay mulxaqaadkii uu sheegay halkan mulxaqaadkii mutannaha waxa la haleeshiyay buu yiri sidiisa loo i'raabaya ithnani wa ithnatani wa thintani mutlaqan iyagoon la kala qaadaynin xaalan la kala qaadayn wuxuu uga jeedo inuu eegi doonaa wakila wakiltaaba la haleeshiyay bishardi idaafatihima tiirin loo tiiriyo kilaa iyo kiltaa shardin la shardinayo ila damiiri damiir loo tiiriyo وذلك صال النحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما جاءني وحيمي كلاهما لبدودي وكلتاهما لبدودي رجعها لبدودي دبركا ورأيت وحنا أركي كليهما لبدودي وأنا أركي وكلتيهما لبدودي وأنا أركي ومررت بكليهما وكلتيهما لبدودي ما صامر وين فإن أضيفها دين لو تيريا كلا كلتا إلى الظاهر اسم ظاهر اللوكتيريو كان وحي نقنيان بالألف أي ملتبسين قار كدهن بالألف ألفتي كدهن في الأحوال أحواشي دحديدة أحواشي الثلاثة صدح ذاهيد وكان وحي نقنيا إعرابهما إعراب كوغنا وحي نقنيا بحركات كائنا مد كسوغان بحركات حركات كسوغان حركات كاسو مقدرة لقدريو في تلك الألف ألف تال وقدريو وذلك صال النحو جاءني كلا الرجلين لبدي بايمي وتسكالها وي وكلت المرأتين لبدي دمركاها ورأيت كلا الرجلين لبدي رجاها بناركي وكلت المرأتين لبدي دمركاها بناركي ومررت بكلا الرجلين لبدي رجاها بن صومري وكلت المرأتين بن صومري واي هل الشيخ رحمة الله عليه وحو مسألة تنكو حكتو شيغيا ايمكا وحو inoo soo tilmaamay waxaanu soo baranay iminka tacriif almuthanna shuruud almuthanna iyo إعراب المثنى صوصامة شرط أرنك أفرادين إمك برانا وحوي ملحقات المثنى أفرتا شيء بعد إمك مثنى كتقان ملحقات المثنى ملحقات المثنى وشن شيء بالله الحاقية ملحق هذا مرك اللي يقول لي ملحق وحوي ملحق ورت وين فهنا دورت ملحق محوية وحا لا يرى هذا كل ما فقد شرطا أو أكثر كل ما فقد شرطا أو أكثر من شروط أصله كل ما فقد شرطا أو أكثر من شروط أصله انتهى شك ملحق وحلا هذا كل ما شيء كستا شيء سوف فقد وايي شرطا شرط بواي أو أكثر من شروط أو أكثر من شروط أصله أما الشرط وحك بدنه شروط أصل ككمدة أو أكثر من شروط أصله واي مثنى إمك سو شروط من عندك مثنى ملحق حقيقة وحلا ورنا يا وحي اللي جواي الشرط أما هي
shardi wax ka badan oo shuruudii muthanaha kamid ah halka ma fahanteen culimo mulxaqa maxaynu markaa nidhi waa maxay yaa ku soo celinaya mulxaq maxaa la yidhaahdaa ya haye sheekh way tacriifka ma carabida kada soomaali ahaan ku sheeg ha shardi ama shardi wax ka badan oo shuruudii asalkiisu lahaaya imika mulxaqul muthanna markaynu ka sheekaynayno mulxaqaatul muthanna markaynu leenahay waxa shuruudii muthannahaynu soo dhiganaynaa meesha marka waxa leenahay mulxaqaatul muthanna waxa noqonaya wixii shardi kamid ah shuruudii muthannaha waaya ama shardi wax ka badan waayay waadix sooma waay halkan hadaba aynu nimaadno shan kalmadood baa mulxaqaatul muthanna noqonay oo shardi ama shardi wax ka badan waayay shantaasi maxay koow ithnaani iyo ithnataani tintani ithnataani bay la mid ya waay soo laba halka ima haysaan kilaa iyo kiltaa waay misa afar taa sheekha sheegay mid shanaad baa lagu daray ma sumiya bihi baa la dhahaa ma sumiya bihi علماء ما لا سعتان شنطة ملحقات كي يكون علنية هاي شيخ كل علي اثنان هي اثنتان هي كلا هي كلتا ما سمي به أحسنت واي شنطة سامحة لا هذا ملحقات مثنى شنطة شروط بالجواي qaarkood shardi baa laga waayay qaar way ka badan tahay soo waadax ma waayahay halkan hadaba aynu labada koowaad u nimaadno waa ithnaani iyo ithnataani waa mararka qaarkood loogu dhawaaqa ithnataani ama thintani baa loogu dhawaaqa ma laba kelmado kala madax banaan ee marna waxa loogu dhawaaqa ithnaani marna maxaa loogu dhawaaqa thintani waadax soo ma waay ithnaani iyo ithnataani labadoodanba وحويان من ملحقات جمع المذكر السالم وايو شرط الشروط جمع وحن كذا من ملحقات المثنى ويا وايو الشرط كم إذا الشروط مثناها لجواي أول ما حد شرط قال لجواي دي شروط المثنى وح كو أهم حي أن يكون مفردا وينه مفرد هذا الشيء أدون يسوي مفرد وينه الله هذا صومه أن يكون له مفرد وينه الله هذا halkan markaynu eegno ithnaani iyo ithnatan labadooduba horta waa muthanna labay tusinayaan xagga macnaha soo saama mufradna ma laha oo waahid maana mufrad ahayn ma واحد مفرد ما صوادح ما لفظي أهانكم موافقسنا معنى أهانكم موافقس مركا وحاني لهين لبدودن يوم حاني لهين ده مفرد ما ملأ لبدودن به مفرد ملأ ترادون سيدو ده مفرد لا ما اسكومن نقطة مفرد يمثلنا يجمع اسكومن نقطة يض وحتى ترادا كلام وحنا أركضنا يدو للراعي جمع مذكر سالم يتروين ككل حتى للراعي صوادح ما مركا اثناني وما أهم حي مفرد كيدو معها واحد معها سؤال كلام فهمي واي اثنان هدبا يا اثنتان لبدو ذنبا شرط جالس لقوا وايين مفرد أنا إلا هين محين نقوليان مركا ملحق بين نقوليان ما دام معنيه مثناها تصينيان أو لبط تصينيان مثنون محوها وح معناها لبط تصيص وما حقي معناها ما دام مثنى كالنقدين سيدي مثناها الله إعرابيا شيخ وحوري مطلقا باصا الله إعرابيا مطلقا هدوه محل لوجه كذا أي بدون شروط بلوجه كذا شرط الآن مطلقا محوك ولا شيخ بدون شروط يضو واحد شرط الله دقينين اثنان اثنتان ماشي هتكون أركتبا سيدي مثنى ونو إعراب واحد شرط يو كلامه هيجين سوادح ما واحد شرط يو كلامه هيجين سيدي مثنى ونو إعراب هدي رفع سيهين ألف ورق علامة الرفعة هدي النسبسين أما خفضسين يأكلك وياه تصالحان آيات وينو كاني تصالحان شو وينو كاني اثنان يا حسوستا يا اثنتاي تصالحان بينو كان فانفجرت منه 12 عينا شو ما ركزي وياه سيدو الله إعرابيا
وهكذا ميل كستو يالانا تسالياشودو waa la mid meel kasto yaalaana tusaalayaashoodu asaas oo kale halkan ma fahanteen mutlaqan marka waxa laga wado ithnaan iyo ithnatan labada kale u kaalay labada ku xiga waa kilaa iyo kilta iyaguna waa mulhaq maxaa la raacinayaa banari iyagana waxa la raacinayaa muthannaha la raacinayaa sidii muthannaha loo i'raabaya waayahay oo kilaa iyo kilta iyagana maxaa laga waayay shardi baa laga waayay oo shardigaas waa maxay mufrad lafdiga iyo macnaha toona ku waafaqa mal ya bil mufrad barbara meel ma maqashay kilaa iyo kilta mufradkeeda kulluna mufrad ma hada waa jamac bas ma ya marka mufrad wujuudka kuma laha mufrad su'aalka waadix meedan fahmi marka shardigaas la waayay xagga macnaha laakiin waxay tusinayaan laba macnaahan carabi laba u dajisay kilaa wa ragiyo laba raga weeyaan kiltaana waa maxay laba dumar weeyaan taada marka la raaciyo muannath bay noqonaysaa maadaama carabi ay macnaahan u dajisay muthanna ay u dajisay waxaynu leenahay sidii muthannaha loo i'raabay laakiin shardi muthannihi kamida buu waayo muthanna rasmiya ma ahe waa mulhaq ila mulhaq wuxuu ahaa wax shardi ama shardi wax ka badan waaye sooma waa mulhaq bay leedahay haye laakiin iyaga shuruud baa ku xidhan marka sida muthannaha loo i'raabay mutlaqan iyagu ma aha biduun shuruud iyo horo kale ma aha iyaga muxuu yiri bi shardi idaafatihima ila ad-damir waxa shardiya hadaynu muthanna xagga i'raabka ka dhigayno waa inaynu ka dhigno waa inay mudaafihiin waa inay mudaafihiin mudaafu ilayhigooguna damiir uu yahay halka ma fahanteen maxaa shardiya banari waa inay mudaafihiin la idaafeeyo mudaafu ilayhiga ka dambeeyana waa inuu noqdo maxay damiir ma la garanaya damaa'irta caadiga hayde waa yahay tusaalaheena nimika u fiirsada jaa'ani kilahuma maxallu shaahid ku halkee khayru daaya magaca ya zubayr واي زبيرو وزبير بشيء غير بشيء زبيرو ومحل شاهد قالك كلاهما واي هي كلاهما marka maxaa sidee maxal shaahid u tahay bal si fasir karta shardiga ma laga helay haye kilaa waa mudaaf humaana waa maxay mudaaf ilay marka kilaa imika waa mudaaf soo ma arkisid humaadanina waa maxay mudaaf ilayhi yo damiir baa loo idaafay maxaa loo idaafay damiir baa loo idaafay maadaama hadaba damiir loo idaafeeyay shardigii way ka soo baxday soo saama sidii muthannaha inuu i'raabeen arada halka ma fahanteen maxaa marka shardiga inay mudaaf noqoto waxa ka dambeeyo mudaaf ilayhigina waa inuu ahaado damiir oo waaye sheekho ka waran hadii ay mudaaf waxa loo idaafeeyay uu damiir noqon waayo waa mudaaf laakiin waxa loo idaafeeyay waa maxay damiirba ma aha waa ismi daahira tusaala magac caadi waxa la yeelaya sheekhay noo soo waday horta tusaalayaasha aynu eegno iyadoo shuruuda waafaqsan wuxuu jaa'ani kilahuma jaa wa ficilkii sooma nuunta waxa la yiraahdaa nuunu wiqaaya la yiraahdaa ya'dana wa baran doonaa damiir muttasila أو في محل النصب مفعول به تعالى أو مفعول به جيو سوق قدمين وايه كلاهما هدبا كلا وحين الله أنه وافعلك عدي تموي عندي لبدو درا يمي الله جاني وحي يمي كيلو يمي وياده هو مفعول به صوما فعل كنا جاء وإماشيه هاي معناها ولجا معناه هو حكا ساعدية إعراب الإعراب بعد المعنى سلمو رجل marka eeg macnaha yar ruux marka hore kadibna markii waxaad kala garanaysaa mufaacil ba wuxuu mise waa mafcuul jaa ficilkii waa imaashihi soo saama yaadan yarna maxay sheegaysaa jaani wuu yimi marka leeday yaadan noo cidi loo yimi ficilka imaashihi ku dul dhacay way ku dul dhacay waxa laga wado weyn insha Allah baran doona ma aha dam ku dul dhacay ma macneed ya way yahay yaadaas marka waa mafcuul bihi كلاهما لبدنا أي مركان هذا نوايو
عدي فعل كسميسيو وعدي تمي محين نقول كاسنا فاعلك مركا كلا ومحيمك وفاعلك سماها كلا وفاعلك كلاهما سماركسي كلا مركا ومثنى وملحق سوى مثنى ملحق بالمثنى ويان مثنى مد لها ليشي ويان مثنىها مد لها ليشي واي حسنت جزاك الله واي مثنى مد لها ليشي ويان تام مثنىها لها ليشي وكلاي وفرصو شرديين ما وضعتها يا ها مضاف مضاف إليه جدنا ما حي صو ضمير ما والضمير وين مضاف إليه جدنا وضمير وياهي ان هذا بمركينو هل كان مرينو كلاهما أين مرينا جاءني كلاهما كلا وحين لنا هي وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ها الألف نيابة عن الضمة لأنه المثنى مثل لأنه ملحق بالمثنى كيف نرانا لأنه ملحق بالمثنى واضح سماع علمه كلتا هذا ضمن والله مد كلتاهما أنا والله مد ويكون عطفنتي واي رأيت كليهما محايس بدليمك كليدي محي نغطيون منصوبين نغطي لأنه مفعول به سماها منصوبين نغطي علامة نصبون ومحي يا وايهي مررت بكليهما أنا يمك ما حاجة لي بق حرف جر وبق شيء سماه مجرور بين نقط واي هدي الله إضافية هذا ظاهر كورما شرط جه هدي له واي وحني هرت مضاف لكن مضاف إليه هو اسم ظاهر ضمير ما سيدة تصالحان إن لا يراهضه جاءني كلا الرجلين جاءني وحيمي كلا الرجلين لبدي النبوة إيمان كلا إيمك و كلمة دي سماه ومضاف وحكدمية لكن وما الرجلين هو اسم ظاهر عادي سماه ضمير ماها حين كي لنا شيخو حين كي لنا waxa laga yeelayaa haday sidaas dhacdo lama oranayo waa mulhaq bil muthanna la oran maayo sidii muthannaha loo i'raabi maaye waxa loo i'raabayaa sida ismi caadiyo oo madax banaan ismi inoo iman doono fasalkan ku sii xiga ma la sarifku waa walaha ma yawaaba kanka ku sii xigaba kanka ku sii xiga way noogu imanaya muqaddaraadka fasal leeyahay فصل مقدرات سو إعرابكم إنه أوران لفظي يتقدير بو كلا بحا كو wax lagu qadaro meelo waxa jira i'raabka la qadaro oo damada iyo fadxadii aanay ka soo muuqan asmaada aanay ka soo muuqanin sidoodo kala mid kamida baa loo i'raabaya ismi waxa jira maqsuur la yiraahdo maqsuurku waa maxay maqsuurku waxa weeye ismi kasta oo mu'raba oo alif ugu dambayso ismi kasta oo mu'raba oo alif ugu dambayso hal xaraka kama soo muuqato ka waligaaba hadad ka muujiistira ya لأن ألف الملساء لا تقبل الحركة أبدا وأمدا بيرا ألف تا ملاسني السيدة هي هذا اللي قرأ مرة كغار يا ما بقى أقبشو وحركة ما بقى أقبشو مقصور مركا ومحي واسمك ألف وجود دميسو كلا إيه كلتا مركا هذا أكتر ما حوجود دمي ورا ألف موجود دميسا ألف موجود دميسا هدي لواي الضمير لا إضافة أيوه سيدا اسمك ألف تو دميسا لا إعراب يا مثنى من نقرأ ملحق مثنى من نقرأ هل كم يلف مسوي كير عليا يا وش كير كاتي سما إيه مركورة أصل كسوق أصل كوا محي كلا إيه كلتا وملحق مثنىها أي ملحق ويهين سما واي كلا يكلتها طبعا مركي سيدا يهين ملحق أيهين وحي لنا هاي شرط بي لكن ملحق يهين وإن مضافيهين وإن هي مضافيهين مضاف إليه كتب بيان ضمير ويهي انت مثلا وافقنا هدينو انتهى الله سيدي مثنى هنا إعرابين هدي لكن انت لوايو محل يلي يا بات على صوما وهدي دعدو دي ما قلت جرت هدي دعدو ما حكي يلا دي سو ما غريس واياي واساسو كله هدي بلوايه كورن شرطيغا او مضاف waxa uu ضمير ما هي اسم ظاهر با مضاف sida tusaalaan jaani kila rajulayn imika kila waynu hayna
ومضاف لكن محا مضافوه الرجلين بمضافوه صوما حين كيلينا سؤال إني سويديو بهان صوما حين يلينا وحين يلينا ملحق مثنى كما دغين هدي شرطيga la waayo maxaynu ka dhigaynaa ismi maqsuur la yiraahdo ka dhigaynaa oo ismiga maqsuurku muxuu ahaa ismiga maqsuurku waxa weeye ismi kasto alif ugu dambayso oo mu'raba ismi kasto mu'raba oo alif ugu dambayso tusaale al-fata imika maxaa ugu dambaysa alif al-fata waa ismi maqsuur weeyaan jaa al-fata alif ma damadu ka muuqan jirtay رأيت الفتاة فتحة ما يكون مقاطع هيه مررت بالفتاة صوصاصون الفتاة كمهر تاجناني ضمضي فتحة دي كسرين محاسة مين شرتي ومقدرين ورجلنا سوما كلا يكلتانا هدي اسم ظاهر الله إضافيه سيدا كاسة إلا من نقونا يانو حركات بالله إعرابية وحروف تبقى كبحيان إعراب بالحروف المريني سوما حركات كابي قليان وحين رأينا واسمي كلا إمك تصالان جاءني كلا وحنا وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف مثني وحاب ما إعرابنا هل كم فهمتن علماء يا صوادح ما هنتاس كيرع العلم بباهت ما أتكي كيرع العلم بباهت مرقوا عكوري هدي لا إعرابه فإن أضيفه هدي الله إضافية إلى الظاهر اسم ظاهرة كان وحي نقنيان بالألف أي ملتبسين بالألف labadani aliftii bay sida ugu ayaa mar walba ugu dambeynaysa kilaa iyo kiltaa aliftaas ma ugu dambeynaysa ma oranaysid kilay iyo kiltay ma oranaysid ya meeshi ma keenaysid aliftaas ma haysanaysa kilaa iyo kiltaa aliftaas ma ugu dambeynaysa hay fil ahwali thalathati saddex xaaladood sheegi ma taqaan waa rafcadi nasbadi iyo khafdadi إعرابكوغو محو نقنيا marka calaamadooda إعراب وكان إعرابهما إعرابكوغو wuxuu noqonayaa بحركات مقدرة حركات مقدرة mid ku sugan buu ahaanay haye oo halkeen lagu qadaraya xarakaadkaas xarakaadkan wuxuu sheegaya damadii soo xaraka ma yahay fadhadii soo xaraka ma yahay kasradii saddexdiiba oo lagu qadaraya halkeen lagu qadaraya fi tilkal alif buu kuri aliftaas lagu qadaraya sheekha uu fiirso sheekha ku kala dhigdhigay aliftaas lagu qadaraya haye tusaale ahaan buu kuri جاءني كلا الرجلين جاء وفعل كي سوماها يا دنوا محي مفعول كي سوماها عدة مواي وكلا هذا سوماها كلا هذا ما أنت وفير صدى صوم مضاف معها مضاف إليه كدم يا محي ما اسم ظاهر مسوى الضمير مر هذا اسم ظاهر كدم يو سيدي مثناه الله ما يعرابي سواضح ما كلا واحد لنا وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف ساسا هنا لا سعتان بني وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف وكا كلا مضاف الرجلين أو مضاف إليه كلتا المرأتين والله واي رأيت كلا الرجلين إمك وايدي منصوبة كلا إمك هو مفعول رأيت وفعل يفعل كلا نوى محي مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة نيابة توش كذا عايز وضع الرسان وياي فتح الله محمد كي وكيل لغة جرت شيخ محمد يا أفر نصبها أصله هاي واي كلا هو محمد كا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف كلا مضاف الرجلين مضاف مررت بكلا الرجلين بعد واحد فجر كلا ذو نوع محي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف صوادح ما هل كم فهمت العلماء مركا هدي شرط قال لوايو waxaa laga dhigayaa ismi alif ugu dambayso oo ismiga alifta ugu dambaysana xarakaadka saddexdaaba waa lagu qadaraa had eeg iyarun ba tusaale baad keensanaysaa waxaad oranaysaa kila iyo kilta mutanna waxay noqonayaan sidii mutannaha loo i'raabaya hadii damiir uu ka dambeeyo sawaadix ma hadaanu damiir ka dambeynina waxaad u i'raabtaa sidii al-fataa aad u i'raabaysi sidii aad الفتى دو عرابيسي يا موسى عيسى اسماء سادو عرابيسي اسماء ما حد سمين جرتي صدخ حركه بود كو قدري جرتي سوما فضحده ضمده كسرده انت ود كو قدري جرتي سوما سيدو اعراب انت واضح ما علم واي maxay noo haray mulxaqaadki
يا حي نهري ما سمي به وامحي ما سمي به وحوي اسم مثنى والله سوق هذا مركز قف مقع لوغا دغه adiga imika waxa lagu bixiyay saad zayd ugu celin jirtay naxwa ayun baa lagu zaydaan ninkan magaciisa waxa la dhahaa zaydaan baa la dhahaa zaydna waa magaciisa caadiga midka kalena waxa looga soo qaaday ku celcelintu ku celcelin jiray marka waaba zaydaan baa la yiri ninkan zaydaan kan imika ma mutanno tusinay jaa zaydani hadaan idhaahdo dee ninka shakhsiga kaliya u jeeda ya shakhsiga kaliya ayaan u jeeda wama sumiya bi ya ومثنى مقع لقى دغتي مثنى مقع لقى دغتي ويان مثنىها مقع لقى دغتي هدبا waxaan oranayna waxa weeyaan sidii مثنىها loo icraabaya leeno de mufrad ma lahe haya ninkii tusinay imka Sooma mufrad ma laha isagii waa mufrad oo macnaha markaad eegto macnaha baa uu mufrad yahay Sooma مثنى ma shuruudii laga ma helin mar haddaan shuruudii laga helin waxaan leenahay waa sidii مثنىها loo icraabaya oo marka ninkii la sheegay waxa la oranayaa جاء الزيداني هي رأيت الزيدين مررت بالزيدين وملحق بالمثنى ما فهمتين مركا كان شنتا كلمه ملحق هذا مركا واي هي شروط شرطي ugu damay muxuu shartiga ugu damay Allah yastaqna anhu غيره Sooma واي waxa u tusaala mudaariq soo qoray jazakallahu khairan waxa u tusaala سواء باوت صالح كلمة سواء لما تثنية لما هي تثنية وايو ان كلمة داسي وحلقة مارمي كلمة داسيون ايا لقى مارم ومثنى لقى دقا او سيون مركز مثنى كدقا سو حلقة سيان سو واضح ما marka waa kelmadaas sawaa baa u tusaala shay laga kaaftoomay in muthanne loo sameeyo sawaa lama sameeyo muthanne kelmad kale oo macno dhowba muthanne loo sameeyo oo siyun leedah ayaa siyaan leedah waadix Sooma waa intaas taas de qisadan xariiriyad ugu wareeriseen bal asmaa'ul khamsa in gaadno wax weyn ma aha ya maalinka soo dirsiga dhigay qisadii xariiriyaha ilaawin xasuusin ayaa la soo qoraa marka de bal asmaa'ul khamsa gaadno wax weyn ma aha xataa iyada laftirkeedii bari weynu gaadhayna hadii haysado waqtiga inoo gaadhay insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk